Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar 11 jir ah aabaheed weydiisay, "Aabbo maxaad siin doontaa markaan 15 sano gaaro?" Aabihii ayaa ku jawaabay, "Aabbo weli waqti ayaa noo dhiman ee Allah na gaarsiiyo." Muddo markay ka soo wareegtay, gabadhiina ay 15 ku dhowaatay, ayaa nasiib darro xanuun ku soo booday oo loola cararay isbitaalka. Waxaana laga soo sheegay wadnaheedii inuu shaqada gaabiyey oo loo baahan yahay in wadno kale loogu beddelo haddii rajo laga qabo nolosheeda. Gabadhii yareed oo isbitaalka joogta ayaa aabaheed weydiisay, "Miyaan dhimanayaa aabbo?" Aabihii ayaa ku jawaabay isagoo ilmeynaya, "Maya, waad caafimaadaysaa aabbo, insha Allah." Gabadhii ayaa tiri, "Ma hubtaa aabbo?" Aabihii oo wejiga ka dadbaya gabadhiisa ayaa ku yidhi, "Haa aabbo." Muddo kadib gabadhii way caafimaaday, isbitaalkana waxaa laga soo saaray maalintii ku aadaneed dhalashadeeda 15aad. Markii xaafadda la keenay, waxay ugu timid warqad kor saarneyd miiska qolkeeda, waxaana ku qorneyd sida tan: "Gabadhaydii qaaliga ahayd, markaad akhrisid warqaddan waxay la micno tahay sidaan horay kuugu sheegay, waad noolaanaysaa. Maalin baad waxaad i weydiisay hadiyad aan ku siin doono markaad 15 jirsatid, laakiin aniga ma garanayn waxaan ku siin doono waqtigaas. Laakiin hadda hadiyaddan ku siiyey waa wadnahayga." Haddii aad sheekadan wax ka faa'iiday, inoogu qor dhanka hoose ee commentiga.